Cabdilaahi Ibraahim Abana wasiirka hore ee wasaaradda waxbarashada ee Somaliland ayaa dhaliilay nidaamka ay u samaysan yihiin xisbiyada dalku. Cabdilaahi Abana ayaa waxa uu siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolka Awdal ugu baaqay inay gebi ahaanba iskaga baxaan xisbiyada dalka. adduunka kootaha wax lagu gooyaa dastuurka lagu gooyaa Rwanda dastuurkii ku go'an tahay dastuurka kuma go'na inaga kuma taalee wax weeye waa loo sameeyaa rag iyo dumar markala socona laakiin waxa weeye waxyaabo badan oo kale ku banaan baa jira xagee ka soo galnaanadu saddex reer baaba qaybsadeen laba waa garxajis midna waa habar walba haysataada xagee beelu ka soo galayaan tarash baan leeyahay waan laagana ma wajistaan leeyahay wax isku leeyahay ninkastoo gurso ku jira ka baxbaan leeyahay way axsaab ma hadee axsaab ma hado xalin axsaabtu waa tii isku timaada fikir siyaasi ah waxay gaari lahayn in aynu nin reer geysaa boor ma ka sharaxno mustaqbalka in gaari lahayn oo dadku cosmopolitan noqdaan in gaari lahayn ومع إنه السودان لنا مركز عندنا خروفة في قبيلات تجيبوا نقولنا ما نضيق يودينا الشغل يزدي تجيبوا لنا نسكول لين هل السياسة دي ولا سكول دي هو conflict and structure بين قناصة حكم كل سكول قالوا أو أودي لو عليك سدين قناصة ورسورس كده لك لو عليك سدين لكن ده غيره مركز عدو ولا هذا يعني هذا اللي سمح يجود بيو غيركم وقعدنا يدو ويسا لكن واحد غيرنا هين حسبنا هين بين ماموريا اسمنا قبريا محمد اسمنا وافقيا ترانسيشن كي لغا غدينا waa laga tagay labun bay noo taala inaan xisbi wanaagsan helno urur wanaagsan dhisano iyana ku noqono reernimadeena labada un bay noo taala isma saddex wada karayna waxaan ku talinayaa anigu oo leeyahay urur wanaagsan ha baadi goorno wala baadi gool kara doodahan iyo aragtiyahan noocan ay noo kordhiya وأنا صفي عنو ضد نور إذا كم بقى ندل كأني من جوبنا إيه يبغى كسوق يب كلام ونسوق عدين نقطة نسوق عدين هذا الكناية وزيرك هوري وزارة وحبرشة Somaliland Cabdilaahi Abane وعاوة وكتشدي مناسبة لقيها اللي قد يسعد كالديمقراطية Somaliland وارجيسة كقبصانتي على قناة تلفزيون كبدعس بقلة درجيس عاصمة Somaliland.